waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dagaalo xooggan oo weli ka socda duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool goobaha lagu dagaalamay iyo khasaaraha soo gaaray ciidamada maamulka Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka ayaa idin soo gudbin doona iyadoo weliba ciidamada SSC goorsii horeysay ay soo bandhigeen hub iyo weliba gaadiid dagaal oo ay sheegeen inay ka furteen ciidamada maamulka Soomaaliland haddaba sidee bay ku suurta gashay in ciidamada SSC ay gacanta ku dhigaan saraakiil sare iyo weliba hub fara badan oo markaasi ay lahaayeen ciidamada maamulka Soomaaliland waxay soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay iyo weliba jabka xooggan ee soo gaaray ciidamada militariga maamulka Somaliland ee ku sugan saldhigga weyn ee Goojacad iyo gurmad xooggan oo halkaasi ay u soo direen ciidamada maamulka Somaliland iyo qorshaha kale ee xiga jabka soo gaaray ciidamada maamulkaasi iyo ballanqaadkii garaad jaamac garaad cali oo gabi ahaanba ee maanta ugu dambeysay iyadoo weliba ballanqaadkaasi ay ka faa'iideysan waayeen ciidamada maamulka Somaliland ee ku sugan saldhigga weyn ee Goojacad dhinaca kale dagaal ayaa maalintii labaad ka socdo magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal kaasi u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo weliba ciidamada maamulka Somaliland kadib markii ciidamadu rasaas nool ay la dhaceen dad markaasi ka cabanayay dilal iyo weliba tacadi ay ciidamada maamulkaasi ka geysteen magaalada Boorame iyo guud ahaanba gobolkaasi Awdal haddaba Somaliland oo u taglaay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ma loo din doontaa furin kale dagaal oo ka furanto gudaha maamulkaasi Somaliland maxaabiistii ciidamada maamulka Somaliland ay gacanta ku hayeen ee laga qabtay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood oo si rasmi ah ay u shaaciyeen maamulka Somaliland in shalay talato iyo xisad xooggan oo ka taagan magaalada Hargeysa iyo qorshaha lagu qaarijinayo qaar ka mid ah isimada beelaha Isaaq oo markaasi ka bilowday magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland gudaha daawadayaal qodobadaas iyo weliba kuwa kale oo faahfaahsan ayaad halkan ku maqli doontaan haddii ay tahay markaadii kugu horeysay ee barteena aad soo boqoto si share garee barnaamijka oo la wadaag asxaabtaada kaleeto aynu ku bilownaa dagaal xooggan ayaa maalintii labaad si toos uga socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalkan ayaa bilowday shalay subaxnimadii waxaana ilaa iyo xilligan hubka noocyadiisa kala duwan laga maqlayaa duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaasi oo ciidamadu ay dagaal xooggan markaasi oo waxba la isku harin ay isku adeegsanayaan ciidamada dadka deegaanka ayaa soo bandhigay hub iyo weliba gaadiid dagaal oo markaasi ay sheegeen inay ka furteen ciidamada maamulka Somaliland ee shalay weerarka ku soo qaaday goobaha iyo weliba saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidamada SSC duulaankan maamulka Somaliland ay ku soo qaadeen magaalada ayaa noqonaya weerarkii 49aad tan iyo intii uu bilowday dagaalka magaalada Laascaanood waxayna u muuqataa Somaliland inay tahay mid weerarada joogtada ku hayso magaalada waxayna ciidamada SSC ay wadaan iska caabin markaasi ay ku badbaadinayaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool jab xooggan ayaana soo gaaray ciidamadii maamulka Somaliland ee weerarka ku soo qaaday magaalada waxa la arkayay khasaare baan iyo weliba tuulooyinka ee markaasi ciidamada gurmadka ee maamulka Somaliland ay marayaan halkaasi oo ay ku daabulayeen meydad iyo weliba dhaawacyo fara badan oo uga dhintay dagaalkii shalayto ka socday duleedka magaalada waxaana ciidamada maamulka Somaliland ay jab xooggan kala kulmeen dagaalkii shalayto ilaa iyo maanta ka socday magaalada tuulada Samakaab iyo weliba deegaanka Og waxaa bilaabatay baroorta iyo weliba oohinta markaasi ay wadaan qaar ka mid ah ehelada ciidamada sida xoogga lagu keenay duleedka magaalada Laascaanood ee Muuse Biixi uu ku khasbay dagaalka Somaliland oo diyaar garoobayso 18 May ayaa sheegtay inay gabi ahaanba intaan la gaarin 18 May ay qaban doonto gacan ku haynta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waana mid keentay inay shalayto dagaal dhowr jaha ay ku soo qaadaan magaalada walow arrintaasi ay fashilantay garaadka guud ee beesha dhumaatay garaad jaamac garaad cali ayaa ballanqaad yaab leh u sameeyay ciidamada maamulka Somaliland ee ku sugan saldhigga weyn ee Goojacad asagoo sheegay inuusan gabi ahaanba ciidamadiisa iyo ciidamada SSC ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka aysan weeraraynin haddii maamulka Somaliland ay go'aansadaan in ciidamadooda ay kala baxaan saldhigga weyn ee Goojacad taa bedelkeeda ciidamada maamulka Somaliland ayaana shalay soo qaaday weerar dhowr jaha kuwaasi oo ay ku soo kala qaadeen deegaanada kala abuurta hodan iyo weliba sidoo kale Togo Maraaga oo ciidamada maamulka Somaliland ay waayadii dambe halkaasi ka wadeen shirqoolo ay rabaan inay ku fashiliyaan ciidamada SSC ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Somaliland ayaa isku dayday qorshayaal fara badan oo markaasi ay qayb ka ahayd in la kala dilo dadka shacabka iyo weliba ciidamada SSC ee ku sugan magaalada Laascaanood iyadoo halkaasi ka samaysay dilal madax jabiya iyo weliba sidoo kale dad halkaasi ay ka afduubatay waana qorshe kale oo markaasi la rabo in dadka shacabka iyo ciidamada SSC la iskaga horgeeyo dhammaanba qorshayaashaasi waxaa fashiliyay garaadada iyo isimada iyo ciidamada SSC oo ayagu isku xilqaanay inay markaasi midnimada iyo wadajirka la ilaaliyo sifo looga guuleysto cadawga baaxadda weyn ee qorshayaasha faraha badan kale in ay markaasi sii joogaan ciidamada maamulkaasi Somaliland guud ahaanba gobolada SSC qorshayaashan oo gabi ahaanba
fashil kusoo dhammaaday ayay maamulka somalilan haatan isku diyaarinayaan inta aan la gaadhin 18 May inay gebi ahaanba gacanta ku dhigaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. garaadada iyo weliba sidoo kaleeto isimada dhaqanka ayaa iyagu dhankooda waxay diyaariyeen qorshayaal markaasi ay gebi ahaanba ciidamada ku midaynayaan awoodooda, waxaana la geeyey furimaha iyo weliba goobaha hore ee dagaalka saraakiil markaasi khibrad u leh dagaalka lagula jiro ciidamada maamulka somalilan oo qaarkood horeyba uga tirsanayeen ciidamadaasi, garanaya dhagarta iyo weliba markaasi xasuuqa iyo tacadiyada goobaha markaasi ay ka geysan karaan. waana qorshe kale oo markaasi lagaga adkaanayo ciidamada maamulka somalilan ee duulaanka sida joogtada ugu hayo magaalada. ciidamada ACC shalayto dagaalkii ka dhacay magaalada laascaanood waxay kusoo bandhigeen gawaari dagaal oo gaaraya ilaa iyo 2 iyo weliba sidoo kale hub fara badan ay sheegeen inay ka furteen. dhowr iyo 10 sargaal oo sarsare oo uu ka mid yahay sargaal markaasi horgal ahaa oo kasoo jeeday beelaha ACC ayaa isaguna la dilay. dabcan wararku waxayba sheegayaan in sargaalkaasi lagu dilay dagaalka shalayto uu ahaa sargaal markaasi mahad cambaashe isku jifan yihiin, sidoo kale tan ahaa sargaal sare oo ka tirsan ciidamada maamulka somalilan. dhinaca kale waxaa iyana isa soo tarayo in dhaawaca mahad cambaashe iyo weliba sargaal sare oo markaasi adeer u yahay Muuse Biixi isaguna loo qaaday magaalada Hargeysa, halkaasi oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad. waana qorshe kale oo markaasi siinaya awood ciidamada ACC inay markaasi ka adkaan karaan ciidamada maamulka somalilan ee ku sugan gudaha saldhiga weyn ee Gooja Cadde iyo weliba duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. waxaana moodaa in ilaa iyo xilligan maamulka somalilan aysan go'aansanin inay qaataan soo jeedinta garaadka ee ah in ciidamadooda kala baxaan duleedka magaalada, istaabadelkeedana iyagu aysan wax dagaala ku qaadayn. waxaana Muuse Biixi uu haatan go'aamiyey in ardayda jaamacadaha iyo weliba kuwa iskuulaadka ay qayb ka noqdaan soo bandhiga iyo weliba sidoo kaleeto qabashada magaalada laascaanood intaan la gaadhin 18 May. waana qorshe kale oo ayada laftirkeeda maamulka somalilan haatan sii kala jebinaya, iyadoo weliba aan ognahay inay dhibaatooyin kala duwan ay ka taagan yihiin gobolada maamulkaasi somalilan. gobolka awdal maalintii labaad oo xidhiidha dagaal u dhexeeya dadka shacabka iyo ciidamada maamulka somalilan ayaa ka socdo. dagaalkan ayaana u muuqda kii ay ka kaceen gobolada ACC. waxaa la dilay haldoor ama nin markaasi haliyey ah oo dadka gobolkaasi awdal ay markaasi u yaqaanaan inuu ahaa nin geesiya, sidoo kaleetana ahaa nin la mid ah ninkii uu ka bilowday dibadbaxyada ka kacay magaalada laascaanood ilaa iyo xilligan sababay in maamulka somalilan jab xoogan halkaasi uu gaarsiiyo, sidoo kalena loogu aaray 1,000 iyo dhowr boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada maamulka somalilan. gobolka awdal intaasi kuma ekayn ama ninkaasi la dilay oo kaliya kuma ekayn iyo mudaharaadyada socda bese. xalayto waxaa gaari lugaha laga marsiiyey mid ka mid a gabdhaha ugu caansan deegaankaasi oo iyadu qayb ka ahayd kacdoonka iyo weliba sidoo kaleeto xuquuqda dadku ay raadinayaan, sidoo kalena horboodaysay mudaharaadkii xalay ka socday magaalada Boorama. rasaas noolnool ayaa dadka lala dhacayaa, dhibaatooyin xoogan ayaa halkaasi ka taagan, iyadoo weliba ilaa iyo xilligan somalilan ama gudoomiye aandhehe madaxweyne ku-xigeenka oo deegaanadaasi laga soo doorto ilaa iyo xilligan unsan wax hadala ka soo bixin. waxayna u muuqataa inuu mari doono wadadii uu ku baxay Cabdirasaaq Khaliif oo ahaa markaasi gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka somalilan, kadib markii uu adkeysan waayey tacdiyada iyo weliba dhibaatada ka socota magaalada laascaanood ayuuna gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif uu go'aansaday inuu dadkiisa la qaybsado dhibaatada. lama garanayo madaxweyne ku-xigeenku inuu asaguna tallaabadaasi qaadi doono, laakiin ma jirto wax mas-uula oo dhacdadii foosha xumeyd ee ciidamada maamulka somalilan ay xalay ka geysteen ilaa iyo maantaba ay ka wadaan magaalada Boorama cid wax iska weydiisay male. waana arrin kale oo markaasi sii adkeyn karta hanaanka lagu qaboojinayo dagaalada ka socda maamulka somalilan. waxay noqotay tusbax furtay iyadoo ilaa iyo xilligan aysan jirin wax waana ama xala oo maamulku uu wado. qaar ka mid a xubnaha mucaaradka ee maamulka somalilan warbaahinta la hadlay ayaana sheegay inay haatan garab siin doonaan cid kasta oo dagaal kula jirta maamulka somalilan. ciidamada ayaa noqday kuwa qabiila, waxayna rasaas la dhacayaan cid kasta oon ahayn beesha Muuse Biixi, iyadoo weliba amarkaasi uu bixinaya sida la sheegay madaxa guud ee sirdoonka ee maamulkaasi somalilan oo asagu ah nin uu dhalay Muuse Biixi Cabdi oo dhawaan uu dalacsiiyey madaxweynahaasi. qorshayaashan dadka lagu khaarijinayo ama lagu dhibaataynayo dadka dhibanaha u noqday waxaa ka mid ah suldaanka guud ee beesha Garxajis oo asagu ah markaasi suldaanka ugu faca weyn ama markaasi kaba soo jeedaba beesha ugu tirada badan maamulkaasi somalilan gaar ahaan beelaha Hisaab. waxaana la sheegay dhowr mar in gurigiisa la weeraray, iyadoo weliba ay ciidamadu damceen inay halkaasi kala baxaan, laakiin ay ciidamada laftirkoodu ku kala jabeen oo ciidamo beeshaasi Garxajis u dhashay ay haatan ilaalinayaan guriga garaadka iyo guud ahaanba goobaha markaasi ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta beeshaasi Garxajis.
daawadayaal waxyaabaha kasoo kordho qaybaha dambe wararkeena ayaad ku maqli doontaan iyadoo weliba aanu soo dhegdhegaynayno goobaha dagaalku ka socda iyo weliba tacadiyada ay ciidamada maamulka somalilan ka wadaan deegaanada gobolka awdal iyo weliba magaalada laascaanood oo dagaal maalintii labaad oo toosa uu ka socdo waxyaabaha kasoo kordho qaybaha dambe aad ku maqli doontaan tan iyo intaan barnaamijkan kan xiga ku kulmi doonana waxaa idinka tagay sidaas iyo ammaanaad.